Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waan salaam saaxiibayaal. Kusoo dhawaada Somali Community College iyo casharadeena ku saabsanaa barashada luqadda Ingiliishka. Sidaad ka aragtaan channelka asbuucyo la soo dhaafay I think 2 weeks inay tahay meelahaas cashir ma soo gelinin marka laga reebo 2 cashir oo ku saabsan cashirkii kitaabka Riyaadu Saalixiinka oo aan Ramadaanka bilowgii soo geliyay. Xoogo some technical problem ayaa qalabkii aan wax ku duubayay iga soo wajahay. Marka hadda insha Allah waan xaliyay arrintii. Casharadeen waxaan rajeynayaa halka inoo sii socon doonaan. Kitaabka Riyaadu Saalixiinka oo 2 cashir u dambeeyay soo geliyana kitaabka oo dhameystiran casharadiisa oo duuban iyo ayuu MP3 ah iyo kitaabka laftarkiisa PDF ah waxaan soo geliyay channelka Telegram-ka oo linkigiisa hoos in soo dhigi doono. Marka qofkii kitaabkaas rabo inuu macnaha akhristo soo dhigi tafsiirka dhageysto soo kitaabkan fiirsana kaas ayuu kala soo degi karaa casharada. Marka kusoo dhawaada mar labaad casharadeeni. Cashirkeenana waa cashir ka mid ah casharadii ku saabsan barashada luqadda Ingiliishka. Waana cashir phrase oo waxaan dhahnay 10 phrase for agree 10 eray oo aqbalaad wax marka aqbalaysid aad dhihi karto markaad wax aqbalaysid. Number 1 ayaan ku bilaabana waxaa dhahday exactly qof ayaa sheeg ku wada markaas waxaa tiri exactly sax waa exactly run ayaa sheegtaa macnaha. Absolutely macnaha ayadan waxaa waaye waxa waaye xaqiiq camal absolutely macnaha iyada marka absolute waxaa waaye unconditionally macnaha waxaad qof shuruud ku xiriirin oo ra'yigiisa la qaadatay qofka hadal u wada markaas waxaa tiri absolutely macnaha waa unconditionally waa macnaha lagama daba hadlaayo waaye. That is so true taasi macnaha waa runta ugu dambeysay waaye. That's so true waa dhab waaye taas waa dhab adoo dhac camal waaye. That's so true taas waa dhab. That's for sure taasina waa xaqiiq for sure wax lahubo waaye. I agree 100% waan kula qabaa 100%. I couldn't agree with you I could not agree with you more macnaha hadda waan kula aqbalay laakiin mar dambe macnaha arrintan waxay ka sii baxsan ma kula aqbalaayo. Tusaale ahaan qof baa sheeg 2 qof isla hadlaayay waa ku kala dhex jirtay gartooda qof baa macnaha qofkii uu ka sheegay marka inuu xoogo aflagaadeeyo u dhexgeliyay markaas waxaad maadaama marka hore aad ka aqbalayso inuu hadalka uu sii wato oo madaxa ugu linayso maxaa tahay marka I could not agree with you more macnaha hadalkaas macnaha ma kula aqbalaa mar kale inta hore waan kula aqbalay. I could not agree with you more. Okay, that's exactly what I think taasi waa sida runta saan u malaynay. That's exactly taasi waa sida xaqiiqda ah what I think waxaan u malaynaya. That's exactly how I feel taasina waa sida exactly runta how I feel and dareemayo. Informal hadda kor waan soo maray cashir oo informal introduction soo marka informal maxaa waaye wax ku saabsan saaxiibadaada marka qof saaxiibka sheeko maxaa tan tell me about it wax ku saabsan tell me about it topic buu ku bilaabaa mawduuc marka khayr aamusan markaas waxaa tiri sheekada ugu socota amal tell me about it sheeg bal wax ku saabsan macnaha sheekada or you are telling me adaa wata macnaha or you are telling me qofka waa adaa sheekada wata macnaha sii wad waa you are telling me that means you agree qofka wuxuu kugu bilaabo sheekada waad ku aqbalash haddii rabo waxaa leedahay please stop that story I don't want to listen sheekadaas iga jooji mar inaad dhegeysta dhihi kartaa laakiin hadduu sheeko ku bilaabo ka aamuso waxaa leedahay you are telling me ama tell me more about it sheeg wax ku saabsan arrintaas. Informal waa iyadana waxaan waa si aan kor ku sheegno oo ah 2 qof oo isku aynaya saaxiibo arrinta ka dhaxaysa I will say waan ku sheegi doonaa I will say I suppose so aniga macnaha saa ayaan u malaynaya. Use this phrase for weak agreement waxaa loo isticmaalaa phrase-kan markii aad wax aqbalaysid wax ka yar 100% wax ka yar 80% aad ku aqbasho waxaa tiri I suppose macnaha I agree so macnaha waan ku raacsanahay laakiin I'm not 100%. You agree but reluctantly waad cagajidaysaa reluctantly means wax laga cagajidayo reluctantly wax waad ka aqbashay laakiin waad cagajidaysaa. Tusaale ahaan qof kaa weyn markuu arrin kugula hadlo isla markiiba meesha go'aan laguma qaato la qofka been baa sheegaysa lama dhaho ama waa qaldanta lama dhaho I suppose macnaha waan kula qaatay macnaha adoo iska cagajidaya la agree waan ku macnaha not
waxaad ogaataa avoid the common error ka fogow qaladaadka commonka of saying I am agree amtan la qaadan marka agree marka ka hadlaysid waxaad leedahay the correct phrase is I agree ayaa leedahay I agree not ma dhahaysid I am agree amtan oo verb to be dan meesha ma gelaysid markaad ka hadlaysid or I'm in agreement ama waxaad dhihi kartaa kale I am in agreement haddaan verb to be amta isticmaashid waa inaad raacisaa in agreement. The second one is more informal. Midda labaadna waa more informal oo qofka markii shir markaa ku jirto waxaa leedahay markii shirka waxoogoo arrintii laga wada hadlayo waxaa leedahay I am in agreement macnaha hadda macnaha waa arrintan kula qaata ama I am agree iyo I am agree that iyo I agree that this one is more informal. Tan ayaa wax badan la isticmaalaa oo macnaha arrin official ah. Okay, the other topic is 10 phrases for disagree. Toban ka mid oo tii hadda sheegayno cagsigeeda oppositekeeda oo disagree la lagu diidan yahay. Maxaa leedahay number 1 I don't think so aniga saas uma malaynayo I don't think so okay aniga saas uma malaynayo. Number 2 I beg to differ aniga waxaan rabaa inaan ka duunaado I beg to differ arrin ayaa laga wada hadlaya group qof baa ra'yi soo jeedin markaas waxaad farta taagto waxaa leedahay I beg to differ aniga waxaan rabaa inaan ka duunaado camal I'm afraid I don't agree aniga waan baqayaa kulama qaadanayo I'm afraid I don't agree qof ayaa macnaha iskuulkeena camal mise dugsiga asla gambina uu ku dhahay ama waxa kusoo jeeda arrin oo macnaha official ahayn macnaha in la sameeyo ficneen markaas waxaad tidhi I am afraid anigu waan cabsanayaa I don't agree kuma raacayo. Number 4 I am not so sure about that aniga arrintaas aad uma hubo I'm not so sure about that qof ayaa saaxiibadka camalka oo saaxiibkaad dhihi karniyo been baa sheegaysaa ayaa wuxuu ku yidhi hebel is that true taas oo saas run mahayd ayuu ku dhahay markaas waxaad tidhi I'm not so sure about that aniga arrintaas aad uma hubo I'm not so sure about that. Number 5 that's not how I see it taasi maaha si aan u arko that's not how I see it bedelka qofka aad kula soo boodi lahayd haddii aad been ma sheegaysaa ama waa qaldan tahay waxa kula soo boodi lahaa adaa si oo reer magaalnimo oo macnaha formal way ah ayaa waxaad leedahay that's not how I see it arrinta aniga saan u arka saas maaha not necessarily means not essential waxaan muhiim ahayn not necessarily macnaha taas arrintaas looma baahno macnaha not essential necessarily waxa waaye not essential waxaan muhiim ahayn or significant or important ahayn. Yes number 7 yes but laakiin macnaha reluctant ilaahay ku jirto meeshaan waad diiday laakiin waad yeeshay laakiin badnaa marka say your opinion waxaad leedahay ra'yi aad qabto qof halka dhex gashay waxaad tiri yes but laakiin I don't think so saa uma malaynayo. On the contrary contrary means different on the different order on the contrary macnaha ayadoo kala duwan macnaha sida kale hadii loo dhigo waxaad dhihi kartaa on the contrary the divergent on the contrary means different divergent macnaha wax kala duwan macnaha qof baa sheeka ku wada markaas dhan kale marka loo dhigaa waxaad dhihi kartaa waxaa leedahay on the contrary haddii dhinaca kale aan u dhigno ayaad leedahay very informal si oo iyadana very informal oo saaxiibka camal informal aan soo sheegno waxaana dadka isku aynigatiin ayaa loo isticmaalaa ereyada informalka marka informal way si adoo qofka wax u diidin macnaha usoo marmar sida qof weyn macnaha u tusin inaad wax diidan tahay asaga qofka kule ayniga waa diidi kartaa waxaa leedahay no way taas maaha no way laakiin qofka markuu aad ixtiraam siinayso waxaa leedahay that's not how I see it aniga maaha taas aan u arka ama waxaa leedahay I'm not so sure about that ama waxaa leedahay I don't agree ama I beg to differ leedahay ama I don't think so laakiin markii saaxiibka isla tiiro arrin kusoo jeedo waxaa leedahay no way maaha saas ma macnaha marka la murmayo faraha iskula tagaa waa leedahay no way. Number 10 very strong iyadana si xoog markaa leedahay very strong disagree markaad si xoog wax u diidanta si aad u diidanta waxay leedahay I totally disagree ani arrintaas bataatan baan kasoo horjeeda I totally disagree. marka cashirkan halkaas ayuu ku egyahay aad ayaan iin wada salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.